شيخ يوسف رحمة الله على الله ورسته ما أنت وين جوه سيا وحين جوه واجبه هونين يدعينه أي جوه واجبه مسلم أهل القبلة لا إله إلا الله محمد رسول الله كجيري أنت أن حتى كأجنهي وحين جوه واجبنا لله غفر الله ذنبه ووسع الله مدخله وإلهي سبحانه وتعالى ذكي وكتجي أهلي وكتجي أرضي سي حرتي سينا الصبر والسلوان إلهي سبحانه وتعالى سي أنا وشيخ وحنا لكل مي أمركي كوادي يجوه الرئيسي كنا سجال بقولي أفرز ديتك هذا مركا وايا رايو قال يا يلا كل سو خد بجمع آخرنا يلا كل ما يربع ما نقدرني لكن إلهي وحكمرك عين روحي وبحي نفسي خرجت مع خطبته عربي يقول ما في علم الكاسو وقش ليدي نفسي خرجت معه مركاسا مركو دميي خطبتي لا سو دادغي بان ددكي بوبيه ku boobaye inay la kulmaan baan safka ka galayo waan salaamay waxaan xasuustaa ilaa salaadii casar gacanta waan haystay in ay idigu salaanto waa diiday laba qof bay nolosheeda ku dhacday intaas laba qof bay nolosheeda soo martay marna arday yar baan ahayo aabahay baa halkan iga kaxeeyay gabilayo xamar buu igeeyo madrasadii sheekh cali suufi sheekhi qaariga ahaa buu aabahay igeeyay markaas uu ku yiri maxay toolay sheekh maxamed yar awoo ahaayo xar wada ahaayeen awoo iyo sheekh ayna ka quraanka igu dhig markaas sheekhiyo cad oo dhar cad xiran oo geed hoos fadhiya baan sheekh cali suufi salaamay kaas dhunkaday markaas miskiga iyo carafta iyo gacanta qabowga daybaajun min ad-daybaaj miskun xariir aad moodid ayaan gacantii wax ku qabsaday markaas malcaamadii markaan tagay ila looxi baa la rabaa inaan wax ku qoro gacantii baan diiday inaan wax ku qoro sheekh cali suufi baa ku soo salaamay baa kula tan cid ku qori maayo cidna ku salaami maayo illa aan gurigii ku soo noqday maxaan ku cunaa gacanta sheekha ku soo salaamay taas waa igu dhacday sheekh cali suufi raxmatullaahi saamaynta koowaad marka koowaad qofka adeersado ku hananayo ku qabsanayo شيخ اللابادي أركاسا كل مينا وحوها شيخ يوسف القرضاوي وحي خدم بيي أرديدي سيبان نقضي حرتي سيبان نقضي دعودي سيبان نقضي حركتي سيبان نقضي اسكو ديق بانو نقضي اسكو أفبانو نقضي طول بانو نقضي ولا لانو نقضي وانو جب هذيني وحي خدم بيي وحبال اسكو لما حرن إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى وحان جعل يهدي إلى هيدمو إن يرو كوبر إن كشيغو فكر وشيخو إنو قتغي 5 دقيقة من 6 دقائق هذه لا هيدو تخصص كيس وشيخ عقيدها أصول الدين جامعته يسوى يربو كتاب كإلهي حفظه سبحانه وتعالى يسقى إسكشي كي مركا وحو يروح عن كبلا ما يبيوري مركا يرى وحان كبلا ما يبيوري تصوف صوفي بانا هذا بيوري صوفي أيام كبلا ما يبيوري مركا يرى إمام الغزالي أبي حامد محمد بن أبي حامد الغزالي شيخ حسن كحر ما يبيوري مركا مركاسان كتبتي سمالك استله استجي جريبيور فتكون شخصية ذي الربانية هذه التزكية ذي التربية ذي اللي انت ذي أو انت ذي سوجات كي خشية ذي خوف كي جدني شخص نكاسو كتأثر بيور مركاسان ما كان آخرين نك وكيا بيور موسوعة إنه يهاي حق فقه وغزالي ولا جماعة أجمر أصولك واتقانا يو كتبتو كقرأ يسقون بأرضي محيطون لو جويه التربية والتزكية isaga ayaa arday maxay tolayeen loogu noqday hatta falaasifadii bariga jiray ninka kurka ka guray tahaafut alfalaasifa wa isaga oo arday looga dambeeyay aakhir umrigiisina imaam abi hamid al-ghazali wuxuu go'ay isaga oo gacanta ku haya laabta sahih al-bukhari isaga oo laabta ugu saaran oo labada gacmood saa u qabsaday ala laytani aflaytu umuri bihi ala laytani aflaytu umuri bihi sawa الله عمره كمان بخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يستو أيوب محتور يقول شيخ حسن يربان كتر أثري هل كان كل بلابه وحن كل ما ذي بيقول ابن تيمية نبدأ المدرسة أنت سكجرانك ها هل كان كل بلابه بيقول سام السعودي وحب رنيه وحن كل جوا بيقول تيمية أي مدرسة أساس كل جوا لما أرمض بقى يلقى بيقول الكتاب والسنة وحن شيء إن دليل راديو إلهي محكيري النبي محكيري صلى الله عليه وسلم دليل بدليل كسجي هاي وكأذي هينا إن عسكضه
aniga oo dhallinyaradaydi ku bilaabmay buu yiri Ghazali lam uqallid al-Ghazali Ghazali man noqon buu yiri anoo ku dhamaaday buu yiri markaan gaboobay madrasatu ibn Taymiyyah ku dhamaaday Taymi man noqon buu yiri manhajkiisaan qaatay laakiin aqwaashiisa ma qaadan buu yiri manhajka axaadiista iyo sunanka lagu fahmay ee lagula soo baxo tuulkii baa dismiskan ka qaatay buu yiri ana dadaalay buu yiri oo dhex galay buu yiri maxay toole hoos imaam al-Banna la kulmay buu yiri oo dacwadiisa bay'ad iyo ahdi kula galay diinta ilaahay intaan noolahay inaan maxay toole u shaqeyno laakiin weligay ma noqon buu yiri bannawiyan hatta want uu tajaawuzay madrasadii Hasan al-Banna uu keenay waa dadka wax ku daray ee ka dheereeyay halka rag farabadi ay ku dul xarkageen warkiisa iyo hadalkiisa ilaa maanta ay fadhiid ay yihiin oo meel ay gaari laayihiin ama Sheekh Qaradawi فهو مقاطو ما فهمي ودقاق يوم حتى هore ayuu maxay u socday waxyaabaha waaweyn ee challenge ka noloshiisa galiyay doodaha faraha badan iyo dagaalada faraha badan uu galay wuxuu isku dayay sheekhu oo laf dhabar u ah fikirku inooga tagay mafhuum jadid ala wa huwa mafhuum alwasatiyya tayaaraad fara badan oo ishardinaya oo lid isku ah ayuu sheekhu isku dayay inuu isku keeno oo uu walaaleeyo oo uu ka daayo colaadan iyo dagaalkan ay hayaano maxaa leedahay xabad joojiso lama ila bal inuu barta xabad joojiya inuu yiraahdo isku dayay bal ila dhageysta bal asuraa'iyadka watan kaga baxaya weydin yaabi ninka laba jabhadood oo isku ridaya ninka dhex fadhiista ka war ay yiraahdo war hubka dhiga war aayar wuxuu doonaa inuu isfahansiiyo as-salafiyyah wa tajdid السلفية والكتابة والسنة إياه التجديد زمن كوس عضايا ما فرديو وحاكسو زيادة يدعوين عصب نوازل عصب كسو زيادة سيدين ولا بدأ أكل منها الأصالة والمعاصلة أصل كيني سيبين وهاي سنة باهيها دونك جوغا ما أنت إيو باهيها دونك جوغا سيبين ولا جان قادنا التمذهب والاجتهاد ولا ما مدرسدود مدرسد waxay tiri taqliidku waa xaraan waxba yaan la qalidi madrasadna maxay tole waxay tiri madhabka cidii dhan uga baxda diintii waa ka baxday muran iyo dagaal baa ka dhex dhacay labada kooxood war sideebaan iyagana u wada hadashiinaa oo dagaalka u joojiya juhdiga iyo dagaaladu galay bay kamid ahayd ta soo socotaaba ka daran intii hore waa meel soke as-suufiyyah wa salafiyyah bal halka isku gal adigu waa kaas bar labada kooxood dhexdoodaan heshiisiin as-suufiyyah oo madrasada ugu umriga weyn taariikhda muslimiinta ah harakaadka imka la sheego iyada ugu umri weyn tabliiqu waa shalay waa 36 ikhwaanku waa shalay waa dhowda waa dhowr iyo 20 مدرسة محمد عبد الوهاب ودمات كي قرني سيدة طبعا والباشا إلا صوت تاجن كورا الشيخ عبد القادر الجيلاني الباشا إلا الشيخ عبد القادر الجيلاني إلا ما أنت صوت تاجن الجيل بجيل وديبا يا كتب تودية مبادئ تودية وحودي محيط ولا حيستاك سو إيجا مركب وحوس كدور الشيخ لا بد جب هذول مسيدي لو وده هذا الشيء لها اللي قدين لها إني مرن أمد نبرجبية إني كرا وإسكت دي ما كنا نجح بس كنا نجحين وامل كلا قلب كلو شيخ إسكت دي فكر جيسا أما كتبتي سعولا بدنا أتكعر كسا وحوي العقل والدين تيار كي جامعة هذا قالي ليبرال كالنقضي أما كوميونيزم كالنقضي أما أفوفك قال أنت وحكوب برتين دين تي إسلام كياسي يرى أنه أقوم في علم ساينس كانوا آمنسنه يكوحذي كهدي مؤسسات كي دينية هاي عريقها أن لجان قادين نور المعلومات كي عصرها هاي يقول أن لجان قادين لبدا مدرسة سيدي يجنا لوكال هين لها قلوين كدركي عقلك الدين كنكتين اللي سوعين لها قلوين كفرديت يجون أن زمن كأن لسعون لها سعون كرواين لها وردقاقة oo dhalinyaradii diinta u soo dhaweeyo oo ka daaya fadhiid kan aad fadhidaan labada kooxoodna dagaal weyn buu galay al-aql wal-ruh wala madrasadood yadna bayna al-aql wal-ruh itusoo itaabsi
iyo ar-ruuxaaniyaat iyo rabbaaniyaadkaas waa laba madrasado inagu dhex jira dood buu ka galay intaasoo dhan sheekhu wuxuu doonayay inuu sameeyo tayaar wasati ah oo maxay salafiyadiisii aaminsan tajdiidkii aaminsan lafdiga tasawufka wuxuu yidhi haddaad diideen oo igu diideen oo qolooyin baa ka dida magaca laftiisa magaca suufi ma maqli karno dad baa ka xajiimooda ilaa way jiraan iskaba daaya buu magaca ka warrama buu yidhi as-sayr ila Allah as-suluk التربية الروحية الربانية الجانب العاطفي في الإسلام لا مشاحة في الاصطلاح wuxuu oran jiray wax allaala wixii ina kulminaya markuu shalay noo dhigayay waa kuwa fuqahada ka inoo fadhiya kutubta noo akhriyay markuu jizyada noo mariyay sheekh mawlid qoran waa halka sheeda fadhiya ayaa jizyada markuu ka hadlayay buu yiri jizyada ma laga deyn karaa magaca ma loo bedeli karaa oo ma la oran karaa maxay toolay inta yimaadeen bay yiraahdeen jizyada naga daayo oo zakat noogu bedela laakiin noo labin laaba ha laga daayo buu magaco zakat labin laaba ha laga qaado وكي نو شيغو يوري شيخ بشيرنا عمر وحو يري وحو احمقسنا ابو مغعينا way qaateen macnihiina way diideen wuxuu culayska saari jiray sheekh Yusuf Qaradaaw war kelmadu haday xajiima hatta haday keenayso oo dadku kala didayaan kelmad iskaba tuuraba kelmadina kulmisa oo isu keento adna aad ogoshay asayru ila Allah wala wada ogol yahay rabbaaniya wala ogol yahay walaakin kunu rabbaaniyiina wala wada ogol yahay baka kelmada la wada ogol yahay in wada kulminaysa haynu qaadano culayska ayuu maxay toolay saar jaanibka siyaasadda kaga baxayo jabhadaha aan idin sheegay iska soo horjeeda intuba sheekhu dagaal bay la galeen intuba dagaal bay mid walba wuxuu ku tirinayay kooxda kale inuu yahay koox walba waxay ku tirinaysay inuu kooxda kale ka soo horjeedo warmaha la isku dhiibay markaas sheekha waxa waran ku dhacay miskiinka yar وحدد اسكو تغي اله قادركم با سبحانه وتعالى جانبك سياستنا دغال وين بو كغلا فكرتنا وامن سناء حركه الاخوان المسلمين اونو لا امنسنه كوده او كجيري ايا waxay aaminsantahay kamid tahay in isbedel siyaasi la keeno wadanada muslimiinta in la keeno isbedel siyaasi hoggaan siyaasadna in la dhaliyo meelaha ay muslimiintu ka jabeen waa dhaqaalahoodii oo fadhiida iyo siyaasadoodii iyo gacan ka sareyso oo isticmaar gacan ku gabad ah sidee isticmaarkana looga xorooba dhaqaalaheena aynu gacanta ugu haysanaa go'aankeena inagu u lahaana hantideena u madax banaana xuduudaha muslimiinta ee la soo ciriiriyayna la isku furaa ummadda nabi maxamed wa anna hadhihi ummatukum ummatan waahidatan ay noqoto hada alhamigi lagu barbaariyay hamigaas maxay tole aaminsanaa marka cid allaala cidii taa ka soo horjeedana sheekh Khalid bayadna ay maxay tolay ay ku ahaydoy kaga soo horjeesatay في النهايه كما dambeyntii aakhir shay waa idin sheego wuxuu sheekhu xarakadaas uu xubin ka ahaa dadkii maxay tole ugu horeeyna uu ahaa laakiin xarakada lafteedu sheekhu waa naqdi نقد ذاتي يسكو سمي guduhu iska naqdiyeen malaha inta soo nino professor ah inta isku tageen ayaa waxay sameeyeen kitaab dan oo ballaaran oo la yiri maxaa ka qaldan xaraka islaamiga maxaa ka qaldan halkay ka gaabis shay qarsoon maaha ayna al-khalal kitaabka ayna al-khalal akhriya kitaab PDF ku jiro internetka maxay toolay ku jiro wala isku yimid نقدي مركا نعيب معها نقدي وحدمينيا معها هلك أي تصوف كواي لهايين المحتسب أي أهل تصوف لهاي وحلا يرى المحتسب بقول كلا بدي بقول سنة نبقى كسر ده بحجري مركاسو بورك كتومي جري بورك درمانة ذنيو تماهن رامهن يو ورمهن نسيتو وروح عشان تصوف معها بورن جري دين تلاهي كبقى قدتك دين تودي صح هذا يقول نو فكان يسمى المحتسب الذي يجدد العهد مرلبات فالشيخ قرضاوي وحو اسكو دايا اساغا يا مدرسه ومحيتو اودايوها inay xaraka islaamiga oo 9 jirsatay meelaha ay fadhiidka ay ku tahay inay naqdiyaan oo ay yiraahdaan meelaha aad ku jabteen waa halkaas wax ka qabsada koow waxa kamid aha
waxyaabaha uu muxuu uu ku naqdiyay dacwadda xarakatu ikhwaan muslimiin inay fikirka ka soo horjeedo iyo dadka curinaya wax cid allaala cidii ku dhac leh in la yiraahdo dibadda joogta inta ilmo yar loo diro waliba kow wuu naqdiyay kaas oo waa kii qoray ninkii suuriga ahaa Umar Ubayd Hasana kitaab dhan buu qoray limaada yaqiibu rushdu indama yaqiibu al-murshid waxa weeyaan critical iyagoo ay gudahooda muxuu ay isnaqdinayaan halkaan wuxuu isku dayay inuu inuu taabto kow qodobka labaad uu isku dayay ku naqdiyay waxay ahayd siyaasadda oo ay ka dhigeen awlawiyadoodii ay ka dhigeen dacwadii iyo tarbiyadii iyo diin barashadii iyo mujtamacii iyo akhlaaq kobcintiina ay laba ay ka dhigeen taa wuxuu ku waafaqay sheekhiisa Abul Hasan an-Nadawi sheekh Abul Hasan an-Nadawi dacwatu ikhwaan muslimiin wuxuu ku criticize gareeyay awlawiyada koowaad waxay dacwadooda laga dhigay siyaasad risaalatu al-ikhwaan buu qoray marka wuxuu yiri war siyaasadu waa juz'un min al-islam islaamka oo dhan siyaasad ma hadde islaamku waa tarbiyad waa tacliim waa masaajidadii waa malcaamadihii waa jaamacaadkii waa dumarkii waa dhaqaalihii waa waxa soo miidho weeyaan marka gebigeediiba in la yiraahdo ilaa aanu kursiga gaadhna mooyaane aabahayba ma aha taana waa ku naqdi aad buu sheekhu taana muxuu uga soo horjeestay qodobka ugu dambeeya oo isku dayay sheekhu inuu muxuu walaalihii iyo dacwadda inuu muxuu uu u naseexeeyo waxay ahayd iyadna dadka isku fura oo dadka idinka afkaarta duwan la dooda oo walaaleeya oo dadka ha kala firdhinina intaad isku aruurin kartaan muxuu isku aruuriya marba qodob baan leeyahay waan ku dhameynayaaye da sheekha laga geeyoonaynin cadaawada koowaad ee reer galbeedku ay u qaadeen intaas waa intii muslimiinta dhexdeedii reer galbeedkuna waxyaabaha koowaad ee Sheekh Yusuf Qaradawi aadka ugu dagaalamay waxa kamid ahaa garab istaagu sheekhu garab istaagay al-qadiyya al-falastiniya خاصة حماس الحركة الإسلامية لمقاومة الإسلام شيخ أحمد ياسين يتيم كيس أجستاجو كو أجستاجي فتاوية أجستاجو كو أجستاجي وهيلية أجستاجو كو أجستاجي إن لو جرمدو شعب كامل حيث ولا هايستو هل كاسينا وحو كعياري دور وي أيوم حيث ولا كعياري ما أنت وين نجوه السياية وادنتي إلى هيدا بيجيس عنا بإذن الله تبارك وتعالى أنت جعل شيخ أو أفتر سيما شيخ نيسا جعلك شيخ أنا جعلي أفكار لك شيخ تماه كتبتي سنة أخريا معه منهج كيسي الدعوة ديسي الشقة ديسي يسيد قد ذالي جرى إنه قد ذاله ودعوة هالكيدي لقوض ولا لي مادو فقهاء للنقضاء ومفسرين للنقضاء ومحدثين للنقضاء وأصوليين للنقضاء ومساجد لفريستو والربانيين للنقضاء إلهي لقبق وخشية إلهي لبضيء ومضى الله يسكوها والله ولا على يدك عدي فكرك يدونا للضوضو عدي منهجك يدونا للضوضو مسلمين تنا آن لحمن انت لا اسكوها إن كرنا إلا اسكوها ومنهجك شيخ وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاكم الله خير